dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka oo garab ka helayo kuwa deegaanka iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa ka socda deegaanka Laba Garas. Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamada dowladda kaashanaya macbuusleyda deegaanka ay weerar dhowr jiha ah ay ku qaadeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab sanayeen deegaanka Laba Garas, waxaana la warinayaa in xilligani dagaal qaraar uu ka socdo deegaankaasi. Ciidamada commandos-ka Danab oo weerarkani qaaday ayaa la sheegay inay qayb ahaan ay u suurto gashay in ay la wareegaan deegaanka kadib xubnihii ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ee deegaankaasi lagu weeraray badankoodii ay iskaga baxeen deegaanka iyadoo xubno fara ku tiris ah ay ka dagaalamayaan. Khasaaraha kala duwan, dhimasho iyo dhaawac leh ayaa la warinayaa in dagaalka xilligani uu socdo uu ka dhashay, walow ilaa iminka si dhab ah loo ogeyn khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay maadaama ay xabaddu weli ay socoto deegaanka. Dhawaqa hubka noocyadiisa kala duwan ee dhinacyadu ay isku weedaarsanayaan ayaa laga maqlayaa deegaanka, waxaana xilligani adag in xog faahfaahsan laga helo dagaalka maadaama dagaalka uu sii xoogeysanayo marba markii kasii dambeysa. Dhinaca kale, waxaa faahfaahin dheeraad ah kasoo baxaya duqeymo diyaaradeed oo la beegsaday gaadiid iyo dagaalamyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Duqeynta ayaa dhacday deegaanka Dameesh ee Shabeelow ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana lagu beegsaday nin magaciisa laga soo gaabiyay Mansoor oo kooxdu u qaabilsanaa dhanka gaadiidka. Qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeynta lagu dilay 50 xubnood kuwaasi oo ku sugnaa deegaanka ay duqeyntu ay ka dhacday. Duqeymaha ay fulinayeen diyaaradaha dhanka cirka ah ee ka taageeraya militariga iyo ciidamada deegaanka dagaalka kula jiraan Al-Shabaab ayaa marar badan deegaano dhaca Shabeellada Dhexe waxa ay ku fuliyeen weeraro la beegsaday xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay u badan yihiin horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab, waxaana duqeymaha qaar ay sababeen in Al-Shabaab laga saaro deegaano badan ka tirsan gobolada dalka, si gaar ah gobolada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe oo ay ka socdaan howlgalo ay si wadajir ah ay u fulinayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo garab ka helaya kuwa xoogga dalka. Dagaalkaasi oo Al-Shabaab looga qabsaday deegaano ay waqtiyo badan ay maamulayeen. Zamzam Maxamuud, HBM TV, magaalada Nairobi.